qoladii al-shabaab waa mas'alo taariikha hadda ka hor meelo badan kama sheegin waa la fadhiisanay axmed godane ayaa oday u ahaa fadhi dheer baan la qaadanay duhurkii ilaa cishahan la fadhinay wax walba waa naga diideen markay naga diideenna waxaan u tilmaannay odayaal baa ila socday sheekh cali warsame macallin maxamuud allah u naxariisto waa dhintay sheekh nuur cali jaamac oo maanta jooga magaalada muqdisho muxuu ahaayey raggaasaan ahayn markay naga diideen oo ay yidhaahdeen wadaaddahan wax ogeyn baa tihin waaqicana waa ka dhacsantihin 4,000 oo waxaa joogay ugandhiyaana magaalada muqdisho 4,000 waxay dhaheen gelin baan eryaynaa annaguna waxaan ku nidhi ma eryi kartaane 4,000 horta 20,000 iyo 30,000 bay ku imaan doonaan kulankaas markay wax walba naga diideen waxaan ku nidhi mushkiladu way sii siyaadi doontaa idinkii xisbul islaamna waad islayn doontaan ummadada qaybteeda kalena waa islayn doontaan ciidamadan hadda aad leediin waan saaraynaana way soo siyaadi doonaan marka dambana waxaad isu rogi doontaan idinkii ummadda inteeda kale inaad noqotaan culimmadii saasay u jeediyeen waana ka soo tagnay maalinkii labaad baan aniga keligii ku noqday maalinka labaad waxaan kala niqaashayo masaa'il diini ah oo ku saabsan gaalaysiinta muslimiinta xaqdarro lagu gaalaysiinayo iyo dhiiggooda la bannaysanayo niqaash dheer baan kala galay axmed godane nin la yidhaahdo fu'aad shongole nin la yidhaahdo mahad karatay kulligood way fadhiyeen waxaan kala niqaashayaa dhiigga soomaalida iyo muslimku inuu xaaraan yahay gaalaysiintan ay dhiigga ku bannaysanayaanna inuu xaaraan yahay ayaguna dood dheer baana dhex martay keligay baana markaa maalinkii labaad baan ku noqday oo masalo taariikha waay 10 sano ka hor waay waxaa dhacday markaa kadib inaan bilaabay muxaadaraad magaalada muqdisho aan afkaartaa kaga digayo masaajidka abu hurayra baa waxaan ku qabtay ciddii joogtay baa joogtay muxaadaro aan kaga hadlayay dhiigga muslimka iyo gaalaysiinta muxaadaradii labaad waxaan ku qabtay suuqa xoolaha muxaadaradan ku qabtay halis baan gallay waardiyaan watay muxuu ahay maxaakimta qaar ka mida ay waardiyeynayey inay nallaayaan bay qarka u istaageen silix baan ku fakarnay muxaadaradii saddexaad waxaan ka dhigay magaalada xaafadda madiina meesha la yidhaahdo saldhigga galbeed meel bannaan ayaan ku qabtay halkaa muxaadaradii iyadoo socota saldhig baa noo dhowaa intayna dhaafeen ayagoo hubaysan oy saldhiggii xabada ku rideen baa madaafiic nalagu soo riday dadkii way isjiidheen wax carara carruurtii dumarkii halis baa la galay waxay ahayd 10 sano ka hor bay ahayd magaalada muqdishoy ahayd markhaati baa laga wada ah waxaan raacay wafdigii qatar aaday xilligaa isaga ah oo odayaal iyo culimo isugu jiray oo ay ka mid ahaayeen odaygii la dhihi jiray muxuu ahaayey nabadoon xasan muxuu ahaayey xaad inuu nool yahaan u malaynayaa waxaa ka mid ahaa axmed diiriye nabadoon axmed diiriye allah u naxariisto inuu dhintaan u malaynayaa qatar wafdigii aaday baan ka mid ah waan soo noqday magaalada nairobi baan ku noqday muxaadaraad musalsal ah oo aad u badan oo dhiigga iyo gaalaysiinta ku saabsan baan ka galay kadib munaasabad kasta oo ummadda lagu qarxiyo ama dhib loogu geysto munaasabad kasta waxaan kaga hadli jiray khudbado iyo muxaadaraad baan kaga hadli jiray wixii aan kari karnana ummadda waa ula soo gurmanaynay tii u dambaysay zoobe oo midda hadda aad xusuusataan ah waxaan ka galay khudab fara badan wixii ilaahay uuna waafajiyeyna ummaddan u keenno oo u soo ururinay xataa waxaa dhacday in anigoo jooga magaalada nairobi intii uu noolaa axmed godane waa qadiyad hadda ka hor cidna aana u sheegin erguu ii soo diray wuxuu igu yidhi waxaan farriin kaaga wadaa nin buu ii soo diray waxaan farriin kaaga wadaa ninkii odayga ahaa
waxaana uu rabaa inaad wada hadashaan oo heshiisaan. waxaan ku yidhi maxaan ku heshiinaynaa? wuxuu yidhi wuxuu rabaa inaad aduguna radinta ka daysood ka aamusto ayaguna ku nabadgeliyaan. waxaan ku yidhi taa macnaheedu waxa weeye lafahaaga ilaasho. dal iyo diin iyo nimankan kadaati waxaan isku hayno naftayda ma ah. naftayda goortii ilaahay qadaray bay bixi, laakiin dal iyo diin baan isku haynaaye hadday diyaar u yihiin inaan ka wada hadalloon ka niqaashno meeshay rabaan baan ugu tegayaa. laakiin hadday tahay lafahaaga ilaasho wax nin weyn loola yimaado ma aha baan ku yidhi. intaasoo dhan markay dhacday magaalada Nairobi waa la ogaa. waxaa jirtay salaadaha habeenka hadduu soo galo cishe iyo maqrib iyo salaada subax waqti aanaan masaajidda ku tukan jirin baana soo martay. hanjabaad iyo handadaad iyo halis aan dareemayno. intaasoo dhan markayna soo martay oo intaasoo halis aan soo galo 10kii sano u dambaysay waxaa wax la yaab la'ah ninka maanta leh fatwadii Sheekh Umal ayaa carruurtii ku agawooday waa Muqdisho joogta oo raba muxaadaro in loo jeediyo. taariikhda in laga been sheego sax maaha. intaa waa mawaaqif wada caam oo markhaati lahoo la wada joogay wey. haddii aan ummad Soomaaliyeed dhiiggeeda daadinayo ama xalaalaynayo markay dhibaatadu gaadho uma soo gurmadeen. haddaan qabo in la daadiyana xoolo uma soo ururiyeen. dareen diineed weeye, mas-uuliyad weeye, culimmadu ay qabto waajib diiniya waay. intaa waxaan idin taariikhdaasi wakhtiga idinkaga lumiyey علشان inaad ogaataan xaqiiqada inaad ogaataan. ummad badan oo been lagu lugooyo waxaan jirin loo sheegayna inay waxa jira